الأمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مقعي مركب كوباد وحلا إلى عرب صحانة عمر وقدوميها جي سي روتا جناسية دقمة أفمدو يانا هاي حفيز كان وحلا فوري مركان كتاريخيو لابكون لحية توانكا بيشي سيديدات يالا فوري وحانا فوري قدوميها روتا جناسية شافي رابي كاهن ayaa furay macnaha xilliga 2016 bishii sideedaad maruu booqasho nooyin degmada Afmadow markuu xaaladaheeda iyo baahideeda uu fiiriyay iyo go'aan qaatay inuu macnaha furo xafiiskan anaan gudoomiye laga dhigay xafiiska baahidiisa iyo waxqabadkiisa isma laha wax badan in la xilligii xafiiska la furay waxaan qabanay baahiya ganacsiga xaqiisa ama arrimaha bulshada xaqeeda ah koow ganacsiga oo midayno oo tafaraaro fara badan uu ku jiray oo hal mid ka dhignay hal xafiisna aanu sameeynay hal hoggaan aanu sameeynay hal aqoonsina aan siinay yaan sameeynay kadib waxaan arrimaha bulshada wax ka qabanay waxaan wax ka qabanay arrimaha bulshada sida iskoolka waa u dhoobaale oo shan fasal iskoolka oo ku jira ay dumeen ilayna ka badbaadiyay waxaana lagu noqonin waan dayactiray shanta iskool saddex iskool jingadan ka qaadnay oo saaray kuwa kana sabitooyin baan saaray waan dayactiray waxaan hadda fasalkii koobaad ee waamo dugsi sare markii hadda la furay waxaan ka qabanay 60 kuraas ah iyo miisaskooda wada socda yana ayadana wax ka qabanay waxaan kale wax ka qabanay ceelka loo qoday magaalada oo lacag ku daray lacag gaadhisay ilaa $10,000 aan ku daray ayadana waxbaan ka qabanay waxaan wax kale oo ka qabanay xagga xoolaha oo macnaha aan midaynay oo macnaha shirkado u sameeynay oo qaabaynay ayadana waxbaan ka qabanay magaalada ganacsigeeda aad buu fiican yahay 100% waxaan hadalkay ku soo koobayaa waxaan halkan uga hambalyeynaa madaxweynaha Maxamed Axmed Islaan Axmedoobe oo ka xadhig jaray maxjarka cusub maalinkii darrada xadhig ka jaray waan soo dhaweynaynaa hambalyaan leenahay maxjarka hambalyo maxjarkaasi wuxuu faa'iido u yahay degmada Afmadow deegaanka sidee u arkaan xafiiska DCC waxay u arkaan si fiican bay u soo dhaweeyeen way la shaqeeyaan ganacsatada way la shaqeeysaa xafiiska si fiican bay u soo wax kasta oo report oo ganacsiga ku baahan waxay keenaan xafiiska wax weyn baan ugu qabtaa jira wax caqabado ay hortaagan oo hadda inay haysto oo ku saabsan ganacsiga maya ganacsiga anagu dadka deegaanka wuxuu xoog badan yahay horta wuxuu xoog badan yahay xooluhu ka shaqeystaa xoolihii baa macnaha caqabad naga taagan hadda waxaa deegaanka uu hayaa xoolo dhan 10,000 oo neef oo ganacsiga deegaanka uu gacanta ku hayo waxaan taas caqabadan koobaad ee na hortaagan waxa weeye xoolahaas oo hadda aan meel aan u dhoofin aan haynin ganacsigeena uu dib aad moodo inuu wax u galay wax galan aan garanaynin laakiin waxaan filaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo maxjar haddii la furay inay xoolaha si fiican ay u socon doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo oo maxjarkaasi noo yahay guul soo heeytay waana soo dhaweynaynaa hambalyan leenahay maxjar xafiisan waxaa la aasaasay 2016 bishii 8 koodeeda la aasaasay waxaana furay gudoomiyaha rugta ganacsiga Shaafi Raabi Kaahi sidee isku shaqeeyeen dadka deegaanka Afmadow si fiican ganacsatada dadkan iskuulada iyo waxa sidee si nooca isku shaqeeyeen si fiican baan wada shaqeynaa iskoolada waxa la wixii cabashaa xagga iskoolka way noo keenan waan qaadnaa caafimaadka sidaas oo wixii cabasho noo keenan waxaan ka qaban karnaa waan ka qabanaa bulshada dhammaan wada shaqeynaa xagga macnaha nadaafada dhan walba aad baan wada shaqeynaa JCC Kismaayo ugu horeeyay gudoomiyaha JCC Jubaland Shaafi Raabi Kaahi wax codsi aad u diraysaa ma jira waxaan u diraynaa inay xoolaha suuq loo raadiyo waxaan u diraynaa ganacsatada degmada Afmadow haddaan wakiil ka nahay xoolaha in lagu raadiyo suuq oo dibadahaas xoolo lagu raadiyo way la dhabartu waa xoolahaas waxaan rabnaa xafiiskana in kor loo soo qaado waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Shaafi Raabi Kaahi inuu xafiiska degmada gaar u soo fiiriyo korna loo qaado haddii Ilaahay yiraahdo wali ma jiraan degmada Afmadow wax xoolaha waxaa jirta hal mar baan anagu yaan maxjarka anagu arrin ka wadana in maxjar la furo yaan 1,200 oo neef ka dhoofinay dekada markii uu horeysay oo dekada Kismaayo xoolo laga dhoofin anaga dhoofinay Afmadow suuqa Afmadow waa suuqa xoolaha wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu weyn ee gobolka Jubbooos halka waran ganacsiga suuqaasi نعم وحاول ينسوق أفمدو وسوق أوين مركل إلى الصوماليا بقى أفمدو مع الصوماليا مركل إلى هذا سوقا وحال لقيك كلمة دا سوماليلاند بوتلاند هيرشابيل مقدشو
dhammaan Soomaaliya oo idil waxaa suuqan baa suuq ah si fiican ugu kala socda nabadgelyadu waa 100% aad buu suuqan macnaha uu kala ugu fiican yahay waana ilaa Garis Kenya waxa lagu yimaadaa suuqan baa wax laga gataa marka ganacsigiisa waa sidaas ganacsi aad buu fiican yahay 100% weey ganacsatada suuqa xoolaha degmada Afmadu ka shaqeeya yurubta ganacsiga JCC si noocay isku xiriireen ma isla shaqeeyaan wax midowga ما يصير بعض شغال سوق حفيزك مسؤول كها وحلا وهي عباشة سوق كيمادة حاجة جناسية حولها كيمادة وإنه كان هذا عباشة وين إنه كان وحكمله رمناين وحلا قبته قدومها روت جناسية قدومها محجر كم مدح وينها جبلان محمد أحمد السلام أحمد وبي أن رمناين وحلا قبته حوله ديان كفرديلا طبعا كنا نف وجناسية عند كويسة حولها ينسوق لور هذيو تاوي إنه مادان عباشة وإنه كان أنا عباشة وسيق قدومنا ندول يرال كنود waxaan ku dar lahayaa maxjirkan soo dhaw hambalyan leenahay waxaan kala ku daraynaa xafiiska waxaan ku darayaa xafiiska Jubbaland ma xafiiska Jubbaland wariyaasha inay xafiis degmada Afur laga furo si maanaha baahida taagan kolbaan u soo tabino wax qabadkan u soo tabino horumarka iyo deegaanka u soo tagan agaasimaha waxaan ku codsanaa xafiis ka furto degmada Afur وإذن كان ماذا إذن كان ودي سودا وين